wiilka oo ayadoo wiilkayga uurkiisa leh baa xaafadda ay degan tahay gabdha Soomaaliya nala degan waxaa jira nin Deenisha oo xabsi ka soo daalay oo nimankan bluetooth isku maaragtay isku sameeyay weeye waa nin murqaweyn oo dhisan mar xabsi uu ka soo baxay baa ninkan islaamaha marka Soomaalida cunug yar naag musaaxib leh Deenisha naagta Deenishka hal wiil baa haysataa garse ciyaalka markay dibadda ku ciyaarayaan halka wiilo adeerka u yahay ila naagta saaxiib ahaan buu kula degan yahay cunug markuu yiraahdo ninkaas ay la hadlay ciyaalkii uu soo dilaa Soomaalida way inantii xamdi kalga calahayd oo waxa weeye heel iyo hooba isla garab taagtay Maryuun Roobre wareer TikTok xaalad adag oo ka soo korortay dagaalkii u dhaxeeyay Maryuun iyo ninkii ay qabtay oo cirkaas ku shareeray saddex cisho oo guri ninkaasi ku jiray magan uu yahay dantu waxay biday inuu hoos wax ka soo iibsado kadib markuu ku jiri waayo gaajo ugu dhintay hoos buu u dagay cunto soo gado isiri ninkii waa lagu tuntay waa lagu garaacay meed ahaan baa looga tagay ilkii kore iyo kuwii hoose intiiba ninkii waa laga riday xaaladii cirkaas isku martay cirka wali waxaan ka baqayaa xaaladdu inay reero iyo qabiilo gasho sasaabse u socoto walow ninka dadka garaacay ee ku tuntay ee ilkii ka daadiyay ee meed ahaanta uga tagay ay yihiin dad Soomaali sheegta oo ka carooday arintii ceebta iyo faxsharka ahayd ee ugbeyd ee ninkaas uu geystay haddaba nin kastoo gabar saa u galow xaaladda xun baa ku sugaysa in lagu takooro beerka laga mar xabsi uu ka soo baxay baa ninkan islaamaha marka Soomaalida cunug yar naag musaaxib leh Deenisha naagta Deenishka hal wiil baa haysataa garse ciyaalka markay dibadda ku ciyaarayaan halka wiilo adeerka u yahay ila naagta saaxiib ahaan buu kula degan yahay cunug markuu yiraahdo ninkaas ay la hadlay ciyaalkii uu soo dilaa Soomaalida gabar aan daris ahayn inay daawanaysaa dhici karta garse oo ninkeedii joogo buu maalin dhulka dhiga sifa maysa dacweyn ninkeedii kama celin ninkan adiga laba gabdhood saddex gabdhood oo Soomaaliya markuu ku soo tuntay oo hooyooyina maalinkii dambe wallahi waxaan u yimid gabadhii uurka ilayd asagoo daaqada kala dooday marka gurigana dhulka waa istuwan wax la yiraahdo waay ayada uur bay leedahay waa fool asagoo daaqada kala doodayaan ugu yimid maanta dalaq buu soo yiri wuu soo fadhiista maanta dalaq intuu soo yiri ayuu soo dhax fadhiista shalay wuxuu lahaa Maryuun 3 bilood ban xaaraan ku haystay ilmahayguna waa wicil meher la'aan ban kaga dhala maanta muxuu yiri aan isla dhageysanay hada barshadki warkiis dhagihiisa iyo afkiisa isma maqlayo daraad wuxuu yiri xaaskayga haddana maanta kala tagno bari ma soo caayayo waxaan inii keenay asagiyo caayaya maanta uu shalay uu soo caaytama waad ogeydeen wuxuu yiri ilmaha ma dhalin 3 bilood ban xaaraan ku haystay maantana muxuu la soo fadhiista hadda dhagihiina isiya warkii shalay amba daraad ay nigu celinaya shalay isla qadadii sida la kaxaystaan ku maqano sixir baan ku maqnaa haddana wuxuu sheegay 3 bil inuu la noolaa bilaa meher la'aan haddana wuxuu sheegay hal bil markay si yaqaanayso shukaansanayeen inuu guursaday wuxuu sheegay ilmihiisa shalay inuu xaaraan ahaa usagu xaaraan ka dhigay maanta wuxuu sheegay inuu leeyahay ilmahayga meher buu ku dhashay xaaskayguna xalaal bay yahay afis baanan weydiisanaya ta walaalayaal halkee baan u raacnaa war waxa la yiri waayeel waa ka suru inagoona isyeelin waayeel waa ka suruda waa inagoona isyeelin Soomaali Maxamed war qofkan ma neefa ma la lacba ma dhimirba halkan u qaadna hada qofkan Ilaahay baa Maryuun dhaafiyay because hableeda yar yar buu ka kufsan laayay ilmadeeda yar yar horta asxaabteeda qaaliga ee waxa la yiraahdaa qamriye Cabdirayaan saan way horta waa kana waa energy drink kana maxaa waay biyo cad waay oo la isagana qamriye wadata horta qamri Ilaahay ka magan galay fir iyo faracna uma lihi ilaahayna waxaan ka baryayaa qof walba balod inuu Ilaahay ka madoobeeyo waa wax adduunka ugu xun ee qofka bini'aadanka loser ka dhiga kara ee lazy ka dhiga kara waa balwad alxamdulillah waligayna balwad ma yeelanin 5 sano Nairobi jooga dad balwad la socota ay dhaadeen hadda ma ahan gabdho Soomaali oo waxa aqoonay aan gur la deganaa istaaga xashiishka ka caba ee balwad la ee cocaine sanka ka qaato oo balaayo dhan isticmaalaan markaas aan baran waay ma hadda anoo hooya oo ma sha Allah oo boosumina barana ilaahu rabbi raxmaan oo waxa ku fasahaadi lahaa iga hay soo marka inta
كومنت قلدن إيسو قرتي أنت بين إيجي شكتن إلهي أدونك كو عذاب آقران وما عفنين أنت أصلا إدكو سو قبقبي هذا dad badan oo waxaan arkay oo aniga soo caanay niman badan oo camal la'aanays please camal yeesha hada shaqo la'aan si shaqo idinsiina boss ay gabanaan welcome guys كلام قف حقا wax ma galaan وأدونك ما أعتين ضد قبله هذا الوجود بريناي وريا إثنين تهريب ملك شيء حقيقة قدام بيسي وريا قبل الماس علم على أحمد إلا يهدي وحوياه كهلا الشيء طاي الرجل الحمراء اللي بيتك هذا الشنو عبد الرحمن عبد الشكور وريا فيري هوية محقق كان عبد الرحمن عبد الشكور كوا هنتي الوجود دوغي وريا رجيسي فضل الله صار صوب سكراب إلهي خيرها قصية واحد دقات فرح ذا إلهي قصية قصة بير حق صورتي في أنا ورك يقدم بيبك هذا بجاني وحن قريب مقال خلاصي اللي جرى سائر حلا ضاوضيال فربضن ومقالة دقدقة إيه ورك صح ده دقدقة إنه هلك كباه إنه أنا وحوي أنا لو ذاك سيد هلك أخو عرفت وحوي أنا أنت حمدك هلك على حيد وحوي يهو بس لجرب تاعك مليون روبري إنك هذه waxa weey raali galin bixiyay milyan rooble ninkeedii oo waxa weey la shirdiray milyan rooble ninkeedii oo tuuqaadaba la shabiyay waa war la yaab leh degdeg sida halka ku aragto inaantii rajaan bashaashahay oo oynaysa ayaa muuqaal soo duubtay inantaas muuqaal ay ka sameynay waxaan inoo sheegay in horta ma marka ay meherka dhigatay sida iyadu sheegtay waxa tii ninkaygu waa nin muxsina balse ninku taatuub halkaa ku leeyahay qoorta ninkan baa muuqaala laga helay isagoo xeeb ku dabaalanaya oo gabadh caddaan ah waxa weeye la baashaalaya adigu oo waxa weeye meel waxaan u sheegaa berked ayuu kula dabaalanaya silsiladeeda gabadhaas qoorta ku xidhan ayuu ka saarayaa taasi waxay ka dhigan tahay inuu ninkani saaxiib hore soo lahaa dadka isguursada laguma mashquulo balse dhacdada kale ee la yaab kale ayaa ah in gabadhaas rajaan iyo waxa weeye ninkaasi markay isguursadeen ay xaflad dhigteen xafladaas oo waxa weeye ay wax abcabayeen dad fara badan oo baraha bulshada isticmaala ayaa been abuur gabadha ka sameeyay oo ku tilmaamay inay ahayd waxyaabaha ammaanka dooriya ee khamriga balse hore ayaan u sheegnay in ay gabadhaas sheegtay in aanay iyadu waxba cabin oo aan meesha la shoogayba aan waxba lagu cabin gabadhaas markaa sawirka lama soo dhigi karo ay hayso waxaad cabayso waayo intaas ayaa bannaan balse waxa weeyaan waa adiga arka iyadaaba soo bandhigtay oo waxa weeyaan waxaad tidhi waxaasaan cabayay oo waxay ahayd waxyaabaha sharaabka iyo caadiga ah ee baawar kale bay ahaayeen balse may ahayn waxyaabaha maanka dooriya waa gabadh soomaaliyeed oo la dulmiyey ayaan odhan karnaa sababtoo ah rajaan oo ah gabadh dhalinyaro ah ayaa heshay nin muxsin ah sida iyadu ku tilmaantay balse jawaab baan iyadana siin lahaa waxaan odhan lahaa ninkaa aad guursatay hadduu muxsin yahay dadka muxsiniinta ihi taatuu ma marsadaan ninkan qoorta ayuu taatuu ku leeyahay waxaa la helay muuqaalo isagoo berkad ku dabaalanaya oo leh waxa weeyaan gabadh ay saaxiib yihiin hadalla qurah aan halkan laga baahin karin waxaas iskaga kaalay oo dhan ma hadda mise wixii hore gabadhan war uma hayna inay ninka soo muxsinisay hadda ninkeedii way qarsatayba iyadaaba bad gashay oo nin caddaana intay guursatay baraha bulshada keentay waa rayaan bashaash reer Nairobi ah oo hadda sidaa loo googoostayba waxbaba lagagama teginba inantii rayaan bashaash ahayd oo qof walba halkuu ka soo gaadho intiisa yidhi intayda isi anigana oo adiga arkaya iyadoo oynaysa maalin dhoweed muuqaal ay soo duubtay oo calooliyo lahaa siday sheegtay gabadhaasi iyadaa ninkeeda xor u ah siday sheegtay waxay tidhi muddo dheer ayuu safarii soo socday ama muddo dheer ayaan xiriir wada lahayn balse maanta waan ku guulaysanay dad fara badan oo Soomaaliyeed ayaa garab ku siiyay weliba ha u badnaadaan dumarka Soomaaliyeed ugu dambeyn rayaan bashaash ayaa soo bandhigtay waxay cabaysay inaan ahayn waxyaabaha ammaanka dooriya sidaad halkaa ku aragto waxa weeyaan Suldaan Amiir oo guursaday gabadh yar oo dhalinyaro ah oo baraha bulshada caan ka ah arrintani waa waxba kama jiraan waa been abuur muu guursan Amiir meel waxa weeyaan
hiig lasoo wada qabsaday oo qoro lasoo wada garay bay ahaayeen oo guur been abuura lacaga lagu kala guranayay lacag 45 waxaan u sheegaa ayaa loo diray haddii 45 kuna ayuu intaa ku helay sida halkaa ku aragta waxa weeyaan mukhtaar oo waxa weeyaan raali geliyay waxa weeyaan maryuun rooble ma ninkii lahaa inanta waxa weeye maryuun rooble markay cadayanayso aniga nadiifiya inantaasoo waxba yahay baa ii timi iyadoo qof weyn noqotay baan ilmo yar ka soo saaray waa siduu hadalka u dhigay waxa weeye labadii dhamaane ee isfuray ee gogashooda dib uga wada sheekay kulley waxaan aragnay muuqaalo ay soo wada duubayaan oo isku faraxsanaayeen balse wadaga arkaya hadda dhiiqada socota ee la leeyahayba arrintii waxa weeyaan horta balse muuqaalka ku xiga muuqaalka kale ku xiga digreyn ay ka soo saarnay labada qof arrintan sidan u dhacday ee dhiiqada ah ee ku dhaco ku daraqda ah oo waxa weeye leendanaanta ah ee waxa weeyaan handalada ah ee shafida fashida la isu aasay ee dalowyada la iskala dhacay ee wax walba saalis ugu yiri armay noqotaa arrin shileena oo lacag lagu raasanayo ama daawadayaal fara badan lagu helayo kulli lacag way ku heleen hadda muuqaaladii ay duubeen oo been maaha taas balse arrintaa hadhow haddii uu yidhaahdo waan israali gelinay oo waa la isku kaaya celiyey maxaa laga odhanayaa kulley anigu mid baan ka leeyahay ninkaas gabadha hadduu ku noqdo xaal ha bixiyo haddii kalena waxa weeye mar walba xaal baa lagu leeyahay balse siduu isagu sheegay yaa ku horreeyey labadooda ka sariirta dib ugu noqday ee dhiiqada lugaha intuu la soo qaray isagoo dhiiqo dhoobo wata dadkii la dhex yimi ninkeeda ayuu ahaa iyaduna markii dambe aragtay ninkii oo waxa weeye dhiiqa lugaha u geliyey ayay raran iyo dab iyaduna shiday sida halkaa ku aragtay waxa weeyaan Aweys Baafow oo aynu garanayno siduu ahaan jiray ilaahay baa mahad iskale waadiga arkaya walaalkan Aweys Baafow maanta quruxda iyo nimcada saaran yaa isgarab taagay hadaba ma ogtahay in fanaan caana oo Soomaaliyeed uu biil u qoray uu lacagta u hayana bil walba u soo diro fanaankan ayaa isweydiinaysa waa Cumar Shooli oo ah fanaan reer Mareykan ah oo xabsi galay weliba ku jiray muddo dheer ugu dambeynna ka soo baxay muuqaalana ay ka sameynay sababaha xabsiga u galeen ay halkaa ku sheegnay ugu dambeyn walaalkan Cumar Shooli khayr ilaahay ha qusiyo ayaan leenahay maadaama heerkaas soo gaarsiisay walaalkan Aweys